nebiga nabadgelyo naxariistoonkiisa ahaatee waxa uu sheegay 5 xayawaan in ay faasiqiin yihiin meel walba oo lagu arko xitaa haddii ay xaramka ku dhex sugan yihiin in xayawaanada la dili karo. dooliga ama jiirka waxa uu ka mid yahay xayawaanada diinta ay banaysay dilkooda, waxaase ku xiga dibqallooca, tukaha, shimbirka galleenka u eg iyo eyga dadcunka ah. diinta islaamka si guud ma ay ogola in noole si ula kac ah loo dilo, balse xayawaanada qaarkood waxa ay banaysay dilkooda maadaama wax kaloo alternative ah oo looga badbaadi karo aysan jirin. muuqaalkani waxaad ku arki doontaa qaar ka mid ah sababaha xayawaanadani faasiqiin loogu tilmaamay, dilkooduna xalaal u yahay. si aan u bilowna muuqaalka, haddii aad wax ka faa'iido si aan kugu soo badina macluumaadka caynkani oo kale ah ee maalin walba aan soo gelino, leegsaar mahadsanid. diinta islaamka waxa ay si guud u ilaalisaa nolosha bani'aadamka, dabeecadda iyo xayawaanada. cid waliba oo ku xadgudubta ama waxyeelo xambaarsan culimadu waxay isku waafaqsan yihiin in la dili karo si dadka iyo deegaanka ay u badbaadaan. sida dhabtaana xayawaanadani maxaa loogu xukumay xukunka faasiqnimada alle unbaa og, balse kelimada faasiq marka micnaheeda qaamuuska dib loo fiiriyo waxaa lagu magacaabaa qofka ka leexda waddada ee ku xadgudba amarada alle uu ku waajibiyey iyo waxyaabaha uu ka reebay. xayawaanadanina waxaa macquul ah inay yihiin kuwa faasiqiin ah oo ka leexday xuduudda ilaahay u jideeyey, ama waxaa macquul ah in ay faasiqiin ku noqdeen waxyeelaynta dadka iyo deegaanka. ka hor inta aanan faahfaahinta xayawaanadan u gudagelin ka hor, waxaa muhiim ah inaynu ogaano in diinta islaamka mamnuucay ku tahay dilka xayawaanada waxba saamaynta aan lahayn. xitaa ma ay bannaano dilka xasharaadka haddii qofka waxyeelo qaniine iyo waxyaabaha la midka aysan gaarsinayn. dooligu waa xayawaan inta badan ku dhex nool dadka dhexdiisa, inkastoo dhowr qaybood uu u kala qaybsamo, haddana waxaa jira dooliyo kaymaha dhexdoodii isaga nool. xayawaankani dooliga ahna dadka waxaa dabeecad u ah marka laga soo tago diinta, xitaa guriga uu soo galo in kimikalis ama sariiq ay ku dilaan. waayo taariikhda bani'aadamka xayawaankani waxaa la og yahay halka uu ku badan yahay ama uu ku nool yahay in khasaaro naf iyo maalba isugu jirta in uu geysto. dooliga guriga uu ku nool yahay waxa uu cunaa fiilada korontada, kadibna waxaa macquul ah in guriga sabab ay u noqoto in dab uu ka kaco. waxaa sidoo kale dhinac uu ka fiiqfiiqi karaa alaabta guriga taala, tanina qoysku waxay u tahay mid khasaaro ah. waxaa intaa ka sii daran in xayawaankani guriga uu keeni karo xanuuno kala duwan, waayo nolosha dabeecadda xayawaanada sunta iyo jeermiska xambaarsan mid ka mid ah waa jiirka. dooligu waxaa la og yahay inuu yahay xayawaan bani'aadamka xagga DNA-gu ay aadka isugu dhow yihiin. qawaacidda cilmiga biolojiguna waxaa la og yahay xayawaanada xanuunada ay xambaarsan yihiin badana bani'aadamku uma ay soo gudbin karaan. xanuunada xayawaanada ku dhaca iyo xanuunada bani'aadamka ku dhaca waa kuwa si guud u kala duwan. tani sababteeduna waa in xayawaanka iyo bani'aadamku kala DNA ay yihiin, balse dooliga iyo bani'aadamku jiinkoodu maadaama uu isku dhow yahay, si fudud halka uu ku nool yahay ama guriga cudurro halis ah ayuu u keeni karaa. waxaa la sheegaa xanuunka daacuunka taariikhda dunida in jiir laga soo qaaday. habeenkii dadka marka ay hurdayaan, xayawaankani waxa uu geli karaa alaabta iyo raashinka dhexdoodii. meel walba uu taabtana jeermis halis ah ayuu uga tegi karaa. sidoo kale xayawaankani saamayntiisii keliya kuma koobna guryaasha, waxa uu sidoo kale geedaha ama beeraha xitaa uu ka dhigi karaa kuwa aanan wax miro ah soo saarin. sunta uu xambaarsan yahay haddii hal mar geedka xididkiisa uu ku daadiyo, geedka oo dhan waxa uu noqdaa mid aanan waxba soo saarin. sidaasi darteeda khasaaraha nafta iyo maalka iyo dhibka uu horseedi karo iyada oo laga taxadarayo xayawaankani, diintu waxa ay fartay in la dili karo si bani'aadamka meelaha uu ku nool yahay looga fogeeyo. dibqallooca waa noole Soomaalida ay aadka u taqaano, waxa ayna dhahan qaniinada xayawaankani qofka waa uu dhiman karaa, waana oraah caafimaad ahaan la hubo. noolahani dibqallooca waxa uu u kala baxaa family ahaan noocyo kala duwan, mid walbo iyaga ka mid ahna qaniinadiisu waa mid aad u daran. waxaaba familiga dibqallooca ka mid ah kooxo 30 gaaraya oo soo saara sun halis ah oo qofka ay hal mar qaniinaan si degdeg ah u dhiman karo.
qofka marka uu dibqalooca bilowgii uu qaniino waxa uu dareemaa xanuun xad dhaaf ah, daqiiqad kadibna goobtii la qaniinay waxa ay noqotaa mid kulul oo soo barartay. Cilmiga gargaarka degdegana waxa uu sheegayaa qofka marka sidaa dibqalooca uu u qaniino si aanay suntiisii dhammaan xubnaha jirka ugu faafin, waa in qofka halka uu ka qaniinay meel ka sarreysa laga xiraa, waayo dibqaloocu waxa uu xambaarsan yahay sun aad khatar u ah dadka iyo xayawaanadu. waxa uu ku yahay mid halis ah oo noloshoodii qaribi kara. sidaasi darteeduna diinta islaamku waxa uu ka mid yahay dibqalooca xayawaanada ay fartay in dadka dhexdoodii laga dhex dheereeyo oo la dilo. waxaa xitaa sidoo kale jira xayawaano dibqalooca lamida oo dilkoodii diinta islaamku ay ku sheegtay mid ajar laga helayo, sida noocyo xayawaanadani gorgortada ka mid ah. xayawaanadani marka indhaha cilmiga lagu fiiriyo sunta ay xambaarsan yihiin darteeda, deegaanka iyo noloshu waa kuwa aad halis ugu ah. tukaha waa noole aad u caqli badan oo koox u socda. xayawaankani tukaha waxay caanka ku yihiin aarsashada iyo weerarka. sida muuqaalkii hore ee tukaha aan kaga soo hadalnay, xayawaankani tukaha haddii aad midkood ka qabsato kadibna hooyadiisii ay kugu aragto gurigaagii, adigaba waxaa macquul ah in weerar ay ku soo qaadaan. waayo barnaamijkii hore ee tukaha waxaan ku soo sheegnay xayawaankani geedaha waaweyn sida qumbaha oo kale marka ay doonayaan in ay jebiyaan buundooyin ama meelo dhaadheer ayay kor ugaga soo tuuraan. waxaase dhici karto xayawaankani tukaha oo laga filan karaa in gurigaagii ama adiga oo bannaanka socda in dhagax ama wax in madaxa ay kaaga dhuftaan, ama waxaaba dhici karto xitaa iyaga oo badan in indhaha ay kala baxaan. tanina waa mid xaqiiqo ah oo la arkay. diinta islaamkuna waxa ay dadku fartay in xayawaankani la dili karo, balse inta aadan dilin ka horna tukaha waa inaad ka taxadartaa, cagsigeeda waxyeelo kale ayaa kugu imaan karta. shimbirka dafaha weeg. dafaha xitaa waxa uu ka mid yahay familiga shimbiraha wax ugaarsada. shimbirahani waxa ay ku jiraan liiska shimbiraha ugu halista badan dunida. qofka haddii uu waddada socdo waxa ay ka dafi karaan wax walba ee qofka uu haysto, marmarna si ula kaca qofka ayaa waxay isku dayaan inay wax ku dhuftaan. keliya bani'aadamkuna ma aha, xayawaanada kale xitaa waxa ay gaarsiiyaan saameyn. xilliyada qaarkood xayawaanadani waxaa la sheegaa xitaa dabka kaymaha Australia ee sanadkii hore, inkastoo saxnimadeedii aanan la hubin in xayawaankani sabab uu ahaa hurinta dabkaasi. goobaha shimbirahani wax ugaarsada ay ku nool yihiin khasaaro un mooye wax kale oo faa'iido ah oo dadka ay u keenaan ma ay jirto. sidaasi darteeda goobaha dadka ay ku nool yihiin xayawaanadani in ay ku dhex noolaadaan ma ay wanaagsano. waana sababta nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuu u faray in laga hortago oo la dilo si aanay waxyeelo dadka u gaarsiin. eyga dadcunka ah. eyga waxa uu ka mid yahay noolayaasha sida dhow bani'aadamka saaxiib ula ah. xitaa xaalad dagaal haddii aad ku sugan tahay, eyga waa noolaha keliya ee qofka saaxiibkiisii u hiilinaya. balse eeyaasha dhexdoodii ma aha kuwa isku wada mid ah. waxaa jira eeyaal halis ah oo dadka cuna, cudurna ku reeba. eeyaashaasina si kastoo meelaha duurka iyo keymaha ay ugu nool yihiin, haddana nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu faray in eeyaashaasi goobta lagu arko in la dili karo. balse ma ay bannaano marnaba xayawaan aan waxyeelo dadka gaarsiin in si ula kaca qofka uu u dilo. dhammaan xukunka dilka ee xayawaanadani mid walba waxaa ka dambaysa xikmad aanan la ogeyn. mana wanaagsana in noolaha bani'aadamka dhexdiisii ay ku dhex noolaadaan. waa in meel bani'aadamka ka fog ay ku dhex noolaadaan. qofka halkaa meelaha ay ku nool yihiin inuu tago kadibna uu dilo sax ma aha. keliya marka ay dadka soo dhex galaan xayawaanadani, qofka waa uu dili karaa si dadka uu uga badbaadiyo.